Jacaylku waa uu ka duwan yahay damaca. Soo jiidashada jirka waxaa loo arkaa mid muhiim u ah qof walba, laakiin jacaylka shucuurta leh waa uu ka duwan yahay damaca. Daraasado ayaa muujinaya in damacu uu ka muuqdo meelaha kicinta maskaxda, laakiin dareenka jacaylka ah waxa uu ka muuqdaa meelaha daryeelka iyo naxariista. Jacaylku waxa uu la mid yahay saamaynta balwadda. Maadada dopamine waxay ku fidsan tahay marxaladda koowaad ee soo jiidashada cilaaqaadyada markii jacayl uu dhaco, taasi oo ah walax isku mid ah oo lagu qariyo markii la cabayo cocaine iyo nicotine-ta, maadaama maadadani ay ka caawinayso inay dareento farxad iyo raynrayn. Jacaylku wuxuu sii xoojiyaa sirta hormoonka testosterone ee lama huraanka u ah inuu dareemo soo jiidashada dhinaca kale. Xaqiiqooyin kale ee ku saabsan jacaylka: qofku wuxuu jecel yahay inuu jeclaado qof isaga la mid ah. Dadku waxay u muuqdaan inay soo jiitaan dadka leh astaamaha wejiga, midabka timaha, iyo midabka indhaha. Neurons waxay si fiican u shaqeysaa sanadka ugu horeeya ee jacaylka, maadaama ay soo baxday in borotiinka mas'uulka ka ah koritaanka dareemayaasha nolosha iyo astaamaha shucuurta ay kordhaan inta lagu guda jiro sanadka koowaad ee jacaylka. Jacaylku waxa uu u baahan yahay inuu iska indha-tiro qaladaadka si uu u noolaado. Badanaa qofka wax jecel ma daneeyo dadka kale ceebaha ay ka sheegayaan jacaylkiisa, gaar ahaan marxaladda isku xirnaanta, taasi oo aqoon-yahanada ay u tixgeliyaan inay muhiim u tahay sii wadida jacaylka. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkan Tarjumaad, subscribe saar, gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee aan soo gelino.